maxaad ka taqaanaa dulmiga baaha ee ibnu aadamku ka geysta dunida aynu ku noolnahay dusheeda balan wax yar ka bare ay soo raac gabadhani waa Sooraanyo waxay ka soo jeedaa dalka Iiraan waa xaasle afar ciyaala iyo say waa gabar ku nool xaalad nolol liidata taasoo keentay seegeeda oo ah mid reerkiisa aan u wanaagsanayn balse ah mid caana dhaqaalana haysta Sooraanyo odaygeeda waxaa lagu magacaabaa Cali waa mid arxan iyo garasho midna aan lahayn waxa uu har iyo habeen ka fakaraa sidoo ku qodi lahaa godkii xaaskiisa gabadhan maskiinta Sooraanyo waxay u dulqaadataa garaacis joogto ah jirdil ugu geysanayo caruurteeda horteeda ninkani manxaa ayaa wuxuu ka horkeenay cadow uga dhigay Sooraanyo wiilkeeda ugu weyn caruurteeda waa midan garaad wacnayn waxa uu baray inuu hooyadiis caayo una gacan qaado marmarka qaarkood intaasi kuma ekaana mushkiladani waa mid si balaaranayso masiibo wadata seegan ayaa wuxuu bartay inan yar oo aad u qurux badan una carab macaanayso uu ka helay rajaay inay yeelayso haddii uu xaaskiisa weyn iska furo intaas kadib Cali oo seega ay u dhaxdo Sooraanyo ayaa ugu horeyn ka dalbaday Sooraanyo oo ah hooyada afar caruur ah u dhashay inuu guursado gabar 14 jir ah sidaas darteedna uu iyada iska furayo balse dhaqanka meesha ma ogola in qof go'aankiisa iska shaqeeyo labada qof ee isfuraya waa inay si wada jir ah aqbalsan yihiin haddii kala xaaluusan awoodin ayaa ku waajibaya inuu siiyo reerkii uu gabadha ka doontay waagay guud casta ahayd ee uu ku oran jiray waan ku jeclahay iyo la'aanta noloshu waa eber iyo cariiri balse Sooraanyo aad uga xumaatay dalabka ninkeeda ayaa waxay u sheegtay in ninkeeda aysan raali ka ahayn furiin oo aysan kaligeed korin karin gabdhaheeda Cali wuxuu go'aan ku gaaray inuu nolosha dhaafiyo xaaskiisa Sooraanyo si uu u guursado gabadha 14 jirka ah qofku Cali doonayo inuu silciyo waa xaaskiisa waa hooyada u dhashay afarta caruurta ah walina diyaar u ah in noloshiisa la qaybsato oo aysan marnaba dayac la doonin isaga iyo caruurtiisa sababtu waxay tahay dhaqanka meesha ka jira oo ah mid aynaan inagu gabi ahaanba aqoon waa haddii ay furiinka ogolaatay waxa waajib ah in afarta cunug ee labana wiilasha yihiin labana gabdhaha yihiin biilka wiilasha oo kaliya bixintiisa lagu leeyahay aabaha halka labada gabdhood iyo hooyada uusan mas'uuliyadooda qaadan oo waajibku fuulayo hooyada oo kaliya Sooraanyo wax la jeclaa ninkan kama qabto balse korrimaha ubadka uu ka dhalay ayaa ka dhigta adoon aan wax ka naxayaaba jirin xataa ubadkeeda kuwii waaweynaa oo reerka ninka iyo ninkuba ku direen hooyadood Cali wuxuu bilaabay dhagartii nolosha ku dhaafin lahaa xaaskiisa Sooraanyo maadaama ay diiday furiinkii fududaa gabadhiina shuruud adag ku soo xirtay Cali wuxuu u tagay mid ka mid ah habaryaraha Sooraanyo una sheegay in Sooraanyo ay ka dhaadhiciso in shaqo looga helay guri uu degan yahay nin iska abula oo maalintiina cuntada ay u karinayso habeenkiina ay ka soo tagayso balse ninkani waa shaytaan qayb weyn ka qaadanaya qodista godka Sooraanyo oo la daala dhacaysa duruufaha adag ee nololeed ayaa shaqadii aqbashay si ay nolosha ubadkeeda ugu kabto maalintiina waa soo shaqaysataa habeenkiina gurigeeda ayay ku soo hoyataa muddo yar kadib Cali wuxuu gaaray waqtiguu Sooraanyo godka u dhaadhicin lahaa isla markiiba Cali wuxuu ku eedeeyay Sooraanyo inay ninka ay u shaqayso xiriir hoose la leedahay oo ay la raaxaysato sidaa daraadeedna ay ku dhacday sino weyn magaaladan yar waxa ka taliya urur aan dhaga iyo indha midna lahayn oo qabali ah intaas kadib Sooraanyo oo maraysa bartanka tuulada ayuu Cali ku dhex eebeeyay bulshada dhexdeeda isagoo meel fagaara oo boqolaal shacab joogan ku jirtilay kuna dhawaaqay erayo aad u fool oo ay ka mid tahay in magaaladani oo dhan ceebaysan tahay sharaftiisana meel looga dhacay dadka deegaanka oo dhan fool xumo ay u soo hoyatay oo naagtiisu ay nin kale la tumatay dadku waa kuwa dumarka u daranaa asaga ayay badanaaniyeen Cali Durbo waxa uu laalushay duqa magaalada ay degan yihiin iyo wadaadka magaalada halka ninkii ay u shaqeynayso lagu hanjabay in dhibaato soo gaaraysa haddii uu ku cadeyn Sooraanyo in falkani run yahay dhammaantood waxay cadeynay ku dhacday fal sino ah sidaas daraadeedna dhagax lagu dilo waa tan la soo yaacay oo Sooraanyo godkeedii la qoday markii la dulgeeyo godkii qaarka dambe lagu aasi lahaa si dhagax lagu dilo ayaa duqii magaalada ku yiri Sooraanyo maxaa jeclaan lahayd in ereyga kugu dambeeyo ay noqdaan maadaama adduunka maanta kugu dambayso Sooraanyo ayaa waxay ku tiri sidaan maxaad u samaynaysaan waxay u muuqataa inaadan i aqoon waxaan ahay Sooraanyo waxaan ahay qof guryihiina laga yaqaan waa isla cuntaynay oo waxaan ahay saaxiibo maxaad sidaan iigu samaynaysaa waxaan ahay dariskiina hooyadii gabadhiina iyo xaaskaaga iyadoo ninkeeda eegaysa ayay tiri sidee ku dhacday inaad qof sidan ku samaysaan dhagixii ugu horreeyay waxaa madaxa kaga jabiyay ninkeeda Cali waxaa daawanaya aabaheed caruurteedii iyo ninkii ay u shaqaynaysay ee markhaatiga beenta ah ku furay iyo dadweyne aad u badan oo degan meeshaasi Sooraanyo waxay dardaaran u dhiibtay habaryarteed iyadoo ka codsatay in gabadhani ay dhashay uga sheekaysa dhacdadan lagu sameeyay hooyadeed ugana sheekaysay in hooyadeed aysan ceeb lahayn laakiin lagu been abuurtay nasiib darra Cali calaf uma helin gabadhii 14 jirka ahayd ee uu darteed xaaskiisa sharafta uga qaaday loona daldalay oo waa loo diiday muddo kadib waxaa soo baxay oo dhabti banaanka keenay gabar joogta guriga maayarka magaalada oo warka ka maqlaysa mar ay isku turtuurayeen gabadha oo dambiga beenta ay dusha ka saarayeen halkaasina waxa ku dhintay gabadhaas